daawadayaal kuwaas waxay ahaayeen qodobadii warkeena ugu waaweyn iminkan ku soo dhawaada isagii oo fidsan xiisad u dhaxaysa Soomaaliya iyo Kenya ayaa hoos u dhacday kadib markii dhawaan labada madaxweyne ee labada dal ee qadka telefoonka ay ku wada hadleen taasi oo ka dambeysay xiisadii dhawaan ka dhacday magaalada Balad Xaawo war ka soo baxay madaxtooyada ayaa lagu sheegay in wada hadalka telefoonka ay kaga hadleen arrimo la xiriira ammaanka xuduudaha sidoo kalena waxa ay ka wada hadleen muhiimadda in wadajir looga shaqeeyo ammaanka xuduudda iyo tan gobolka iyagoo isla gartay in la iska dhaafo isfaham waaga sida warka madaxtooyada laga soo saaray lagu sheegay waxa la isla gartay baahida loo qabo in si degdeg ah loo sameeyo guddi wadajir ah oo ka shaqeeya xoojinta xiriirka siyaasadda ganacsiga u dhaxeeya labada dal gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda diinta iyo awqaafta ayaa maanta xariga ka jaray masjidka jaamacadda ee degmada Shangaani oo dib u dhis lagu sameeyay masjidkan oo dhisnaa 800 oo sano ayuu burbur ka soo gaaray xilligii dagaalada ay dhacayeen warbixin arinta ku saabsan waxa inoo faahfaahinaya Cabdikariin Ciise Cadaawe dhismaha masjidka taariikhiga ah ee jaamac Shangaani waxaa la hirgeliyay 800 sano ka hor sida ay sheegeen culimada iyo odayaasha degmada Shangaani waxa uu masjidkani ka mid yahay goobaha taariikhiga ee dalka ku yaala gaar ahaan magaalada Muqdisho inkastoo dhismaha masjidkani uu ku burburay dagaaladii sokoy ee ka dhacay dalka ayaa waxa dib u dhis ku sameeyay oo kafaalo qaaday maamulka gobolka Banaadir waxaana si rasmi ah dhismaha masjidka jaamac Shangaani xarig ka jaray gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta ee xukuumadda federaalka Soomaaliya xarig jarka kadib ayaa mas'uuliyiinta waxa ay kormeer ku sameeyeen qeybaha uu masjidkani ka kooban yahay iyadoo ay xusid mudan tahay in dhismaha masjidkani uu ku sii hooseeyo ama ka hoos dhisan yahay masjid kale oo dhismihiisa la hirgeliyay in ka badan 800 oo sano ka hor ugu horeyntii xafladda xarag jarka waxaa hadal ka jeediyay gudoomiyaha degmada Shangaani oo ugu mahadceliyay cid alaala cidii ka qayb qaadatay dhismaha masjidkan waxaan rabaa inaan halkaan uga mahadcelino cid walba ka qayb qaadatay dhismihiisa masjidka oo aad loo qurxiyay qarash badan uu ku baxay marka waxaan kula dardaarmaa aniga maadaama ka gudoomiye degmo ahaan uu waajib naga saaran yahay degmadeenana uu ku yaalo wixii waroo dhiman waxaan u deynaa madaxda sare laakiin aniga waxa iga qusay waxay tahay inaan kula dardaarmo nadaafadda masjidka maadaama baytullaahi uu yahay baytullaahina qof walba oo muslim ah oo saalixa ayuu waajib ka saaran yahay inuu ilaaliyo nadaafadiisa nadaafadda markaan leeyahay kaliya ma aha masjidka gudihiisa masjidka hareerihiisa in la ilaaliyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa dhankiisa balan qaaday in ay qayb weyn ka qaadan doonaan dhismaha goobaha taariikhiga gaar ahaan masaajidada insha Allah waxaan aad iyo aad u rajaynaynaa iyadoo aan ka faa'iideysan doono si gaar ah annaga aan ahaydba waqtiga nagu yimid ka agaasimana waa la socday howlaha qaarkood in aan si gaar guddiga aan u casuulno sidii ay noo tahay in aan guddiga marxaladda soo socota aan rabno inaan weegan horaantiisaba inaan iska aragno si wixii looga baahan yahay masaajidka looga baahan hadda waa bilow yaraan bilowno inaan saaka kitaabo yar la soo gaaro meesha laakiin waxaan rajaynaynaa in kutubo cilmiga la helo oo dadka cilmiga ee jooga laga faa'iideysto saacadii fadhi ku dirka la joogi lahaa in loo mataqaana tartamo oo dhaqanka ahaa dhaqan ku duwan aan helayno iyadoo aan buqcadii haysano waa runtii waa fursad aad u weyn aan gadaal kugu soo noqonay in Allah intii hore wax baratay ee aqoonta aragteen leh ee diiniga ah ma aha dad jaamacad ka soo wada baxay ma kulli madrasada ay ka soo baxeen waa masjid macallinku helo fursadeeda u helay marka insha Allah aadaan u amaanaynaa runtii sida hadda talada aan ku arkayno wanaaga wadajirka leh ugu dambeyntii gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Umar Filish iyo dhankiisa la dardaarmay dhammaan bulshada gobolka Banaadir gaar ahaan degmada Shangaani si qayb buuxda leh u qaadan lahaayeen dhismaha goobaha taariikhiga ah sida masaajidada lagu cibaadeysto marka anoo ardaya oo yar wadadan soo mari jiray inaan maanta aan ku guuleysto inaan laami saaro aad aan u faraxsanahay waxaa la rabaa marka dadka reer Shangaani ana markaas Shangaani ma deganeyn dadka reer Shangaani ee markaas deganaa ee weli degan waxa waaye waxa laga rabaa aayadooda inay qaataan haddii ardayga adiga kugu xiga oo aayadiisa qaato adiga maxaa suwe adiga taada inaa qaadid
marka ayadda wax kale maaha dhib maaha gurigaaga dhisale waaye walaalkaa kalena u sheeg inuu asigana oo gurigiisa dhisto wixii markaas soo hara oo ama dangood ah ama dadkii iska lahaa aan lahayn maamulkiina adigoo kaashanaya u soo gudbiya madaxda dawladda macnaha go'aan guudaa laga gaara waa fahamtay xitaa ha ahaato inaan wax isku dardarno meesha aan shamiito marino nuurad la mariyo kadib macnaha meel quruxsan oo ifaysa ay noqoto maxaa yeelay laami nadiif oo cusub oo dhinacyadiisa ay wada duunsan yihiin wax lagu farxi kara maaha niyad jab waay marka insha allahu tacaala waxaan isku dardaarmaynaa cabsida ilaahay subxaana wa tacaala kadib waxaan isku dardaarmaynaa inaan dhisano waddankeenna beledkeenna aan dhisano cabdikariin ciise cadaabe Shabeelle TV Muqdisho dood ku saabsan arrimaha haweenka ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho iyagoo la filayo in dhawaan la xuso maalinta haweenka ee caalamka doodan waxaa soo qaban qaabiyay midowga Yurub waxaana ka qayb galay xubno isugu jira xildhibaano madax kale oo ka mid ah wakiilka midowga Yurub oo fadhiya arrimaha Soomaaliya warbixintan waxay noo faahfaahinayaa onkod aadan dood ku saabsan maalinta haweenka adduunka ee 8 Maarso ay ka qayb galeen mas'uuliyiin ka tirsan beesha caalamka iyo dawladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho safiirka midowga Yurub oo fadhiya Soomaaliya ambassador Nicholas ayaa hogaaminayay kulanka lagu gurfeynayay maalinta haweenka adduunka waxaana madasha dadkii ka hadlay oo isugu jiray xildhibaano iyo mas'uuliyiin kala goobta ay ka sheegeen sida ay muhiim u tahay in haweenka door muuqda ay ku yeeshaan dhismaha dawladda iyo maamul goboleedyada dalka qaar ka mid ah dadkii ka qayb galay kulanka dooda ayaa ku dheeraaday ahmiyadda dumarka ay u leeyihiin bulshada Soomaaliyeed iyo inay door muuqda ku yeeshaan siyaasadda Soomaaliya ragga waxay ku jireen waqti badan baarlamaan ku jireen ama dawlad hore ha ahaadaan ama intii hadda aan boqolkiiba 30 la qaadan ha ahaadaan inta anaga dhacsigeennana inaan maaragtay maasha Allah waa ku faraxsanahay waan ugu amaanta waa mahadsantahay laakiin hadda siyaasadii la bilaabay oo lugta lala galay wax weyn maxay u qaban waayeen oo maxay maaragtay dib ugu jiraan oo intaasaan ka malaynayna waa soo wadnaa wax walba waxaan aan gaari karnaa yani hadaf kasta oo aan rabno iyo meel fiican waxaan isleeyahay inaan is ognahay su-aashii ka horeysay oo kale baarlamaanka iyo dadkii soo saaray iyo gabdhaha noogu jira in ay ka dhaxayso wada shaqayn ay is og yihiin in baahiyaha oo la is og yahay ma aha kaliya haddii adiga aad tahay qof oo ah codkar inaa aniga ay xoogaysid kursiga laakiin aan wada shaqeyno ani waxay la tahay waxa keenay kala duwanaanshaha muxuu ahay maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe laba sababood baa aniga hadda ii muuqda intii la sheegay mooyaane mid waxa waaye ololahan la wado oo gabdhuhu inay siyaasadda ka qayb galaan baan isaga qudhiisu rukumo waaweyn ku taagnayn caadifado badan baa ku jira waxaan taas u leeyahay waxa waaye dawladdan hadda nidaamkan aan ku shaqaynaynahay waxa weeyaan waa 3 dabaq waaye dabaqa dawladaha hoose waxa la yiraahdo oo degmooyinka ka jira iyo midkan maamul goboleedka iyo midka kale ee federaalka saddexdooduba waa marka waxa naga maqan dadka iyaga hawshan ku jira antaan gabdhaha isku daro waxa weeyaan midda meesha ka maqan waxa waaye in ay jiraan siyaasado iyo xeelado iyo shaqooyin saddexda meeloodba ka soconaya saddexda dabaqba ka soconaya kulankan ayaa hordhac u ahaa xuska 8 Maarso oo ah maalinta haweenka adduunka iyadoona lagu wado in maalintaasi la soo bandhigo caqabadaha haysta dumarka iyo horumarada ay sameeyaan sanad walba onkod aadan Shabeelle TV Muqdisho shirkadda Camel Group Company ayaa lacag faa'iido ah siisay dadka ku nool magaalada Muqdisho iyo gobolada dalka oo ay maalgashadeen shirkaddan ayaa sidoo kale bulshada u haysa hawlo kale oo ay ku jiraan mashaariic horumarineed warbixintan waxaa noo faahfaahinaya Zakariya Axmed Muuse kumanaan shacab Soomaaliyeed ayaa maanta lacago faa'iidaha ka qaatay xarumaha Camel Group of Company ee ku yaala magaalada Muqdisho iyo gobolada dalka xarumaha kambaniga ee ku kala yaala wadada Maka al-Mukarrama degmada Hodon gaar ahaan xaafadda KBB iyo xarunta suuq bacaad ee magaalada Muqdisho ayaa dhammaantood maanta dadweynuhu waxa ay ka qaadanayeen ama ay ka qaateen lacago faa'iido ah oo ka dhashay maalgashi ay horay ugu sameeyeen kambaniga Camel Group
sidoo kale xarumaha Kamal Group of Company ay ku leedahay magaalooyinka Beledweyne iyo Beled Xaabo oo ka kala tirsan gobolada Hiiraan iyo Gedo ayaa maanta shacabka ku nool magaalooyinkaasi waxa ay ka qaadanayeen ama ay ka qaateen lacag faa'iido ah. sidoo kale waxaa howlo xooggan oo shaqo ay ka soconayaan xarumaha Kamal Group Company uu ku leeyahay magaalooyinka Ceelwaaq iyo Kismaayo oo ka wada tirsan deegaanada maamulka Jubbaland. waxaa xusid mudan in iyadana ay howlo shaqo ay ka soconayaan laan kambanigu uu ku leeyahay magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya, halkaasi oo ay ku nool yihiin Soomaali badan. shacabka maanta lacagaha faa'iidada ka qaadanayay xarumaha Kamal Group Company ee magaalada Muqdisho oo qaarkood la hadlay TV-ga Shabeelle ayaa sheegay in bil kasta xilligan oo kale ay lacago faa'iido ka qaataan kambaniga Kamal Group. kambanigan uu u xifdiyay una damaanad qaaday lafaha lacagaha ay maal gashadeen, iyagoo intaasi raaciyay in kambanigu uu wax badan ka bedelay dhaqaalaha qoysas badan oo Soomaaliyeed. waxa ayna xuseen in Kamal Group Company uu leeyahay damaanad la hubo uuna wax badan uga duwan yahay kambaniyada ka jira dalka, iyagoo ay bogaadiyeen hawsha uu shacabka Soomaaliyeed u hayo kambaniga Kamal Group. waxaan ka mid ahay macaamiisha shirkadda Kamal Group Company. waxaa shirkadda aan ka mid ahay muddo oo 3 sano ah. waxaan soo galay 2018 bishii Oktoobar. ani ardaynimo oo soo maray dadka maalgashiga waa kamid ahaa. dabcan waa dad boqolkiiba boqol aamini karo waana kulay dad aad u wanaagsan soo dhaweynta ku fiican yihiin. wax xumaan haddaan ka sheegay shakhsiyan maba ku beerin kuwa kale waa mana aadin. Yaasiin Carabow Axmed oo ka mid ah howlwadeennada Kamal Group of Company oo la hadlay TV-ga Shabeelle ayaa waxa uu sheegay in kumanaan qof oo ka mid ah macaamiisha kambaniga ay maanta xarumahooda ku kala yaala Muqdisho iyo gobolada dalka ay ka qaateen lacago faa'iido ah, isagoo xusay in Kamal Group uu yahay kambani leh damaanad la hubo kana go'an tahay maamulka kambaniga dardargelinta hawsha ay u hayaan shacabka Soomaaliyeed. waxaan rabaa in halkaan ugu cadeeyo ummadda Soomaaliyeed inay maanta taariikhda ku beegan tahay 5 bisha 3 2020 inay ku beegan tahay maalintii aan sii jirnay lacagtooda faa'iidada ah ayadoona wax dhib ah iyo wax caqabad aysan ugu dhicin ilaahay amaantiisa ayadoo si siman loo qaadanayo dhammaan barnaamijyada Kamal meesha ay ku yaalaan ay tahay xarumaha Muqdisho qaybaha kala duwan ay tahay dhammaan gobolada sida Beledweyne iyo Beled Xaabo. alxamdulillah kulleeto ma filayo maanta in qof customer ah wax cabasho ah oo naga muujinayo ay jiraan ayada nin kasta maanta oo farxad iyo wixii raacaan aan ku qaatay qof kasta oo noo imaadaan si wixii update ahna aan ugu sheegno wixii aan soo korina aan ula wadaagno dan wixiisana aan u siino asigoo ka warqabo kambaniga inuu furan yahay in xaaladii wixii socdaan naftiisa oo aan loo sheekayno wax kasta oo goobjoog u ahaa lacagtina ka shaqo ku qaato. waxaan ugu duwanahay wax badan kaga duwanahay dadka dhanka maxaa lahay amaanada kaleeto in maxaa lahay intaas aan qornaa muddo 3 sano ah ayaa soo shaqeynay. intaas marka ma jirin ilaa hadda qof customer ah naga caawinayo ama inaan maxaa lacag ka luminay ama in maxaa lahay wax cabasho customer ah hadday tahay taas hadday tahay dhan kale oo ah wax loo yaqaano milkiyadda oo kambaniga leeyahay kaleeto wax loo yaqaano asset kambaniga umadeymaayo shirkad foorkasta maanta ka shaqeysa haddana leh maxaa lahay hanti muguurta ah. alxamdulillah Kamal waxaas dhan way madax bannaan tahay guryo waaweyn kule waddanka Mukarrama marka intaasna waa kaga duwanahay kambaniyada kale. sidoo kale waxaa TV-ga Shabeelle la hadlay maamulada xarumaha Kamal Group ee degmada Hodan gaar ahaan xaafadda KBB iyo xarunta Suuq Bacaad iyagoo sharaxaad ka bixiyay qaabka ay hawsha ugu socoto xarumahaasi. Kamal Group of Company qaybteeda KBB maxaamiisheena sharafta leh waxaan ku soo dhaweynaynaa gacmo furan soo dhawaada. maanta waa maalintii lacag bixinta insha Allah si maxquula ugu qiimaha badan aan ku soo dhaweynaynaa. welcome to Kamal Group of Company. maanta waxaan noo bilowday lacagtii paymentkii faa'iidada ah ay lahaayeen dadkii maalgashtay Kamal Group of Company. maanta waxaan noo socotaa si aad uga heerayso. waxaan filahaa in ay dadkii ay kulli ay lacagtooda heleen ay faa'iidada u soo baxday Kamal Group of Company.
xarunta Kamal Group of Company ay ku leedahay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa maanta lacaga faa'iido ah siisay shacabka ku nool magaaladaasi oo horey u maalgashaday kambaniga. Saciid Cismaan Nuur oo ah maamulaha xafiiska Kamal ee Beledweyne ayaa ka warbixiyay qaabka ay maanta u bixiyeen lacagaha faa'iidada ah. mar walba waxaan u heelanahay hadaynu nahay maamulkii Kamal Group Company qaybteeda Beledweyne inaynu haqabtirno daboolnana baahiyaha maalgelineed iyo midda faa'iidada ee ku xeeran Kamal Group Company. Saognahay Kamal Group Company xarumo fara badan ay ku leedahay wadanka dacalada gaar ahaan gobolada Gedo Jubbada Hoose iyo caasimadda xarumo fara badan ku leedahay. Waxaanu mar walbana waxay u taaganahay inaynu u adeegno shacabka Soomaaliyeed ee adeega aan u qabanayno. mar walba waxay idileenahay gacmo furan ku soo dhawaada iyo hawshii aad naga barateen iyadoo tayeesan mar walbana aan si joogto ah idinku adeegi doono hadduu Ilaahay kala noqdo aad iyo aad aan idin soo dhaweynaynaa. Sidoo kale waxaa xusid mudan maanta oo taariikhda ku baahan tahay 5 bisha March inaan u madalsanahay bixinta lacagihii faa'iidada oo aynu u bixin jirnay waqtiyadan oo kale haddii aan lahayd macaamiisha hore iyo macaamiisha cusubba si aad arkaysaana ay hawluhu u socdaan sidii loogu talagalay 100% ah. waxaan rajaynaynaa macaamiisheena mar walba inaynu baahidooda maalgelineed iyo mid faa'iidaba aynu sidan uga barteen ee tayeesan ay inooga heli doonaan insha Allah. sidoo kale waxaa shacabka degan degmada Beled Xaawo ee gobolka Gedo ay maanta xarunta Kamal Group ee degmadaasi ay ka qaateen faa'iidada lacago ay horey u maalgashadeen. waxaana ay ka warbixinaya maamulaha xarunta Kamal Group ee degmada Beled Xaawo Maxamed Ibrahim Farax. kambanigan laantan Beled Xaawo waxaa la furay muddo hadda laga joogo ilaa 4 bilood ka hor. shaqooyinka aan u qabano dadkan customerkana aad bay noogu amaaneen. waxaana mahad Ilaahay ah waa kambaniga ugu horeeya oo Beled Xaawo joogo oo ku shaqeeyo hanti uu isaga leeyahay ama hanti ma guurta ah sida meelaha uu degan yahay kale. nasiibku ugu badan oo leenahay waa taa marka ummadda Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa in ummadda ay u maalgashanayaan ama ay u dhiibaan ay kala ogaadaan. sidoo kale waxaa hawlo xoogan oo dhinaca shaqada ah ay ka soconayaan xarunta Kamal Group of Company ee magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose. sida uu TV-ga Shabeelle uga warbixiyay maamulaha Kamal Group xarunta Kismaayo Umar Maxamed Jimcaale oo la hadlay TV-ga Shabeelle. inta ka sokow Kamal Group of Company waxa ay ahayd mid ugu horeysay ee laga aasaaso magaalada Muqdisho. dhismahan quruxda badan ee aad ku aragteen muuqaalkan ma ahan kiro ma ahan meel aan ku meel gaar ahaan aan codsi intaan dhiibanay la siiyay. runtii waxa ay ka mid tahay hantida maguurtada ah ee Kamal Group of Company taas oo aan uga mahad celinayno Allah subhanahu wa ta'ala. marka labaadna aan u mahad celinayno maamulka iyo tiimka Kamal hagar la'aantii iyo shaqadii ay qabteen in ay maanta sababteedu noqoto in Kismaayo looga howlgalo dabaqan quruxda badan ee aad u jeedaan. haddii aysan jirin wada shaqeyn heerkan lama soo gaarin. wax qabadka aan bulshada u qabanno runtii waa shaqo aad iyo aad u weyn waa mas'uuliyad waxaan xafidnaa oo ammaanada bulshada noo dhiibteen aad iyo aad aan uga taxadirnaa. kadibna waxaan siinaa faa'iido. runtii Kamal Group of Company intii ay shaqeynaysay aad iyo aad ay dadku ugu diirsadeen wayna mahdiyeen. insha Allah ta'ala waxaan rajaynayaa Kismaayo oo hadda bilaaw ah wixii laga bilaabo bisha afraad xilligeeda insha Allah ta'ala hadduu Ilaahay yiraahdo in ay iyaguna mahdin doonaan. Kamal Group of Company oo kamid ah kambaniyada ka howlgala dalka muddo 4 sano ahna ka shaqeynayay ayaa maamulka sare ee kambaniga waxa ay ballan qaadeen dardargelinta hawlaha ay u hayaan shacabka Soomaaliyeed iyagoo xusay in kambanigu uu leeyahay damaanad la hubo. Zakariya Axmed Muuse TV-ga Shabeelle Muqdisho. kulan xog wareysi ah ayaa maanta magaalada Baydhabo ku dhexmaray saraakiisha ammaanka iyo gudoomiyaasha xaafadaha ay ka kooban tahay magaalada Baydhabo. kulankani ayaa looga hadlay arrimaha ammaanka barakacayaasha oo ay ka qayb ahaayeen wakiilo ka socday dalladaha ay leeyihiin barakacayaasha. warbixintan waxaa faahfaahinaya wariyaheena Maslax Raage.
isagoo waraysiga iyo wadatashiga waa mid ay ku dhisan tahay jiritaan bulsho wanaagsan iyo dal fiican midaasna waxay imaan kartaa waa markay is-aaminaan labada dhinac shacabka iyo mas-uuliyiinta kulankan wadatashiga waxaa hal mar la qabtay khamiis walba iyagoona iska waraysanayaan shacabka maamulka iyo saraakiisha ciidanka waxaana kasoo qaybgalay dhammaan gudoomiyaasha xaafadaha Baydhabo dalada ay ku midaysan yihiin dhammaan barakayaasha ku sugan Baydhabo mas-uuliyiinta maamulka gobolka iyo degmada Baydhabo saraakiisha ciidamada qalabka sida iyagoona dhammaantood iska xog waraysanayeen wixii kasoo kordhay toddobaadkan goobii ay ku sugnaayeen iyagoona laga dhageysanayay gudoomiyaasha xaafadaha Baydhabo talooyin ku aadan amniga degmada Baydhabo iyagoona qeyb weyn ka qaadan doonaan sugitaanka guud ahaan degmada tan Baydhabo ugu horreyn waxaa goobtaasi ka hadlay taliyaha ciidanka booliska degmada Baydhabo Muqtaar Ibraahim Dibidow iyo taliyaha ciidanka booliska gobolka Baay Amiin Maxamed Daruur waxaanay sheegeen in marnaba aan loo dulqaadan karin shakhsiyaadka caadiystay daadinta dhiigga muslimka aan waxba galabsanin oo hadda gabaad ka dhiganaya degmada tan Baydhabo marka intaas wali sheentay fiyoona dhamaan ileeg islaan beesan hasiyaan wadbiinta iyo la jeeran uunku iyo la jarlay wadbiinta nasiyo marka may fadaane dhammaan tiriska koolay lankama daaslan walku galabsadii laay gurigeynuusa gala iska qarahi walna ka dhamaay qodun jeedid ma in dhiig lanka muslimka tawistan is iitay deedi madana kala male كل كمين اللي روج الدين ولا كقطع لانك تويسلو لانك براسل ولا لانك دلوا ولا كقطع كل يوم لا رأس وما بدنا اللي روج ترى مكون إلهي لا يقول دلوا كل مركل لانك مركي إلهي إيمانك في بعض وما لا رأي إيمانك إلهي في بعض لانك دي شيء بنايسه سبب لانك ولا دل إلهي والدلوا كل سبب لانك ولا مركل ما لا نبني آدم ولا نبلي ولا ونهاته مالي فلان وني ديار يا ومتمنون كوبان انو اللي دغان انو وني ديار ماشي قوسدان شعب الصوماليه جاران خير بايدو ماشي قوسدان اني دي شاغي اوني شيردان نمان كان ومت دباتر ماليغا كوشكين لان افدا ديرتي غوريا كيدك لام غوري ولا اولادك ولا كدار ترو اني دي شيردان بايدو هدي حق قال عليك دي مقال كور مقال كور بايدو فانا كوري دي بيتا منو way bua ma ko ni dang ni bedang wadang hay sida male wadang hay sida oo maamul goboleed hay sida Baydhabo ni bidta la yaalma jar may la faa ma dum Baydhabo ni ulaado tumugan ka tan la kiiliyi laakiin ho barnaamij liskala oo dhibaatadii ulaada kii la baaqaya magaalo korta Baydhabo hatta way faa afraad oo qaato labaatan soddon dala faa laakiin ho abaartiido walaadi lama dooniyo kii la baaqaya gudoomiyaha degmada Baydhabo Umar Bikoole iyo gudoomiye xigeenka amniga iyo siyaasadda degmada Baydhabo Isaaq Maxamed Nuur Taygaab ayaa qayb ka ah kulankan iswaraysiga iyo wadatashiga waxaana ay sheegeen in hal dhinac la iska wada jeesto la dagaalanka al-shabaab وليش شيء فضي سراكيش هالشيء كتير وما يكلم بدل الشيء وكلام تكلم لك دراهم ولا دب اللقل دب ما يكوينا شريعة شريك إلهي ما بطلع فوق بطاطا ما يشريك ككوية هذه الآن منكم أنا أشاف في البلاس إلهي إنجلان هذه الآن شريك أنك وين كسبه وإلهي كدريه والله وبالله الله كعبد الله في زمن متى مدرسة هل قاد تابع مني قاد حتى هذا كي زمن مرفيا ولا من أكبر haddii oo yani muxuu arrimahaas la isugu bedel cadowka badaya koo waxaa weeye shabaab waay koo waa xaasid dowladda diidow dowladda fadaano koo waa xaasid qofka bini aadamka waa inoo golayno basharka ilaahay abuuray saasaan isdhaanja way la faday anta ka badan iyo nadiif ah anta ka badanaa wadaniidka jarka wadani ah lankasba wadaniida la kafada inda shay jeelada oo shacab jeelada oo maamul shay jeelada oo dowladda jeelada oo la ka shaqeeyo meelaha subhanahu horumarinta dhulkiika iyo shacabkiika Xasan Nuur Ilkaase waa gudoomiye ku-xigeenka amniga gobolka Baay ayaa soo gabagabeeyay kulankan isagoo dardaaran u jeediyay maamulka saraakiisha amniga Baydhabo iyo shacabka
inay aad u adkeeyaan amniga degmada Baydhabo. daankasta ee gudoomiyaha guriga ka arag lan oo al-shabaab ee dhaafdaabi oo hanistiineen marneeda mudumada oo bulshada guriga dawladda wareega soo an shaawon meeshin wada gudoomiyaha xaafadaha shaawon soo isin marneeda meelaray xaafadaha ka dhacay tan bulshada joogsay hoos فقال ما قبل قبائل الدول مرنا هذول ما بدنا هذول اللي ليش بدي شايفين الشيء وهذا شقان في فيلا بول استدي شقاي بقول كيف بقول حافظات دكتور ما برا مرنا ما شو هذا كده لا مشكلة كده لا لكن بدون حافظيات ولا سيكتاجر ولا سيكتاجر يجيب مشكلة نظيف مستر سلام محمد مصلح راقي وربعين شبل بيدبو ganacsatada Soomaalida ah ayaa ka waramay saameynta badeecooyinkooda looga keeno Shiinaha uu ku yeeshay cudurka coronavirus. waxayna ganacsatadu ay ka warameen in ay yaraadeen badeecooyinka laga keenay jiray Shiinaha sababo la xiriira safarada halkaasi oo adkaaday. warbixin arinta ku saabsan waxa markale faahfaahinaya Zakariye Axmed Muuse. coronavirus oo dabayaaqadii sanadii 2019 ka bilowday Shiinaha ayaa saameyn xoog leh ku yeeshay badeecooyinkii ganacsatada Soomaalida ay ka keeni jireen dalkaasi iyadoo sare u kac xoog leh laga dareemayo suuqyada dalka Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho. badeecooyinka qiimo kaca uu ku yimid ayaa waxaa ka mid ah dharka noocyadiisa kala duwan oo ay xirtaan ragga iyo dumarka, kabaha, shumacyada, rogaga iyo dahmanka oo qiimo ahaan sare u kac uu ka jiro, taasi oo saameyn ku yeelatay dadka doonaya in ay wax ka iibsadaan suuqyada magaalada Muqdisho. farqiga u dhaxeeya qiimaha la kala siisan jiray badeecooyinkan ka hor inta dalka Shiinaha uusan ka dilaacin cudurka COVID-19 oo farabaan ku haya wadamo badan oo kamid ah caalamka iyo xilligan ayaa aad u kala duwan, iyadoo ganacsatada Soomaalida ay sheegeen in qiimo koror uu haatan jiro. qaar kamid ah ganacsatada Muqdisho oo la hadlayay Shabeelle ayaa xaalad murugsanaan ah ka muujiyay hakadka ku yimid ganacsigii laga keeni jiray Shiinaha oo ay tilmaameen in haddii ay sidan ku sii socoto ay cirka isku sii shareeri karaan qiimaha badeecooyinka ay iibiyaan xilli ay fooda nagu soo hayso bisha barakeysan ee Ramadaan oo dadku ay si aad ugu dukaamistaan suuqyada lagu iibiyo dharka iyo kabaha. runtii isbedel xoog leh ayaa ka jira xagga ganacsiga qayb ahaan annaga waxaan iibino oo ah badeecada dharka noocyada kala duwan. runtii isbedelkaasi waa mid muuqda oo aan ahayn mid qarsoon. tusaale ahaan shayga aan ku soo qaadi jirnay $78 wuxuu marayaa hadda $90. shayga 90 aan ku soo qaadinayna wuxuu marayaa $120. noocyada dharka annaga iibino waxaa kamid ah shaatiyaasha, saraawiisha, funaanadaha, cimaamadaha iyo macawiiso noocyo kala duwan ah. waxaa sabab u ah yani dhibaatooyinka iyo xaaladaha uu wadanku markaas ku sugan yahay. wadankaas Shiinaha ayay Soomaalidu runtii u iibtagi jireen. farqi weyn u dhaxeeya sababtoo ah dharka waagi hore waxa ku imaan jiray raqiis maalmahan dambe waxa ku yimid qiimo koror oo sabab u tahay dharkii la leeyahay waa la waayay dharka waa yaraaday sababtoo China ayaa dharkan la keeni jiray badanaa waxyaabaha libiska ugu badan waxa laga keeni jiray China China waa la socoteen xaaladeeda in coronavirus ka dilaacay oo maaragtay wax dhaqaaqay wax ganacsiga ka jirin xataa badeecadii jiray oo meeshii laga qaab laga soo bixiyay la leeyahay ama sida muuqataba ay ku darsameen oo la qaadan karo oo daaqada laga soo bixin jiray 300 waa 350 oo deedahaas oo kale tii baatiga laga bixin jiray 15 waa 20 shay kasta in wax ku darsameen waa iska caday taas wax la isweydiinaya ma waxa sabab waa dhulkii wax laga keeni jiray oo kale ayaa xirmay oo sidii ama inta badan dadku waxay alaabta China laga keeni jiray dharka horta waagi hore raqiis uu ma jiray hata waayahan dambe iyo bilahan qaali lagu imaanaya sababtuna waxay tahay adeega meesha laga geeni jiray cudur lahaay coronavirus ku dhacay ka dilaacay marka dadkii meeshan jooga xagga aadi jiray oo u saamix waa inay xagga aadaan sabab amni awood dharka aan ka horta aan iibiyo aan horta wixii waa daahiye iyo shumacyo. qiimo kororkan ku yimid qiimaha la kala siisto badeecooyinka kala duwan ee suuqyada magaalada Muqdisho ayaa sababay inuu aad u yaraado wax iibsiga suuqa. Zakariya Axmed Muuse, TV-ga Shabeelle, Muqdisho. bandhigyada ganacsiga ayaa ku soo badanaya dalka Soomaaliya talaabada oo lagu tilmaamay mid muujinaysa horumar. wasiirka ganacsiga ayaa sheegay inay muhiim weyn ay leedahay bandhigyada noocan ah ayna kor u qaadayaan rajada dadka iyo dadka. warbixintan waxaa faahfaahinaya Cabdi Casiis Cali Guule.
wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha jamhuuriyadda federaalk Soomaaliya injineer Cabdullaahi Cali Xasan ayaa ka qayb galay xaflad xiritaanka bandhiga gaadiidka ee Muqdisho oo lagu qabtay hotelka Guryasame ee Muqdisho. Waxa uu ka hadlay bandhig ganacsiyada ku soo badanaya wadanka. Uu sheegay inay muujinayso horumarka dhinaca ganacsiga, balse waxa uu ku dhawaaqay in ay qabanayaan bandhig ganacsi Soomaaliyeed oo noqon doono bandhig mideeya sidoo kalena ay ka soo qayb galaan ganacsiyada dalka oo dhan. wasaaraddu waxay ku howlan tahay ama ay rabtaa ama qorshe u ah sanadkan intuusan dhammaan in la qabto carwo ama bandhig weyn oo ka tarjumaya barnaamijyadii dalka lagu qabtay iyo kuwaan la qaban dhammaantood oo sektarada kala duwan laga heli karo si hal meel la isugu keeno wax soo saarka dalka iyo ganacsigiisa kala duwan. marka la qabanayo bandhigaasna waxa weeye bandhiga awtada ee Muqdisho qayb ayuu ka ahaan doonaa. marka runtii marka aad ayay yidilo u leedahay, aad ayaan ugu faraxsanahay. waxyaabaha kale oo noo qorshaysa waxaa ka mid ah in meelihii lagu qaban jiray oo qarankan uu lahaa oo ay ka mid tahay carwadii qaranka in maalin maalmaha ka mid ah ay gacanteena soo geli doonto oo aan rajeynayno intaan sanadkan u dhammaan in carwadii qaranka la helo si loo helo meelo ku habboon oo lagu qaban karo bandhigyadan oo runtii u suura gasho in annaga kaliya annaguna aan ka soo qayb galno muxuu ahaa meel ku habboon loo helo caalamkuna nagala soo qayb galo oo arrin aad u ballaaran ay noqoto. dhinaca kale wasiirka oo ay weheliyaan saraakiil ka tirsan wasaaradda ayaa khudbad halkaasi ka jeediyay ku bogaadiyay cid kasta oo soo qaban qaadisay sidoo kalena ka gacan geysatay barnaamijka bandhiga gaadiidka. Uu sheegay inuu muhiimad weyn u lahaa dalka gaar ahaan ganacsi. waxa uuna carabka ku dhuftay in gaadiidka ay kaalin weyn ku leeyihiin dhaqaaqa iyo horumarka ganacsiga. waxaa kale oo runtii aan rabnaa ka wasaarad ahaan bandhigyada noocaana oo runtii dalka ku soo badanaya oo sektarro badan leh oo sektor walba uu si gooniya uu runtii isugu abaabulayo waxayna tusaysaa ay tusaale u tahay ay yidilo gelinaysaa dalkeenna. waxa weeye waa runtii iftiin, waa runtii alxamdulillaah 10 sano ee ugu dambeeyay dalkeennu horumar ayuu ku tallaabsanayay. sanadkii 2019 bilowgii